بسم الله الرحمن الرحيم قلب وناكسن maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha Luulyo 2026 waxaa xisbiga nabad iyo nolol uu ka qayb galay wareegii labaad ee shirkii wada hadallada ee magaalada Muqdisho uga socday mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay fududeynaysayna dowladda Turkiga. Shirka aan maanta ka qayb galnay waxa uu u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo nabad iyo nolol. waxaana goobjoog ka ahaa dowladaha Turkiga, Mareykanka, Ingiriiska iyo ururka midowga Yurub iyo qaramada midooba oo loo yaqaano Quartet. Shirka maanta ujeedadiisu waxay ahayd in garab walba uu soo bandhigo nooca doorashada ee ay siinayaan ahmiyadda iyo sida looga bixi karo marxaladda siyaasadeed ee hadda lagu jiro. Sidaas daraaddeed waxaan jeclahay inaan dadweynaha Soomaaliyeed la wadaagno nooca doorasho ee aan u aragno in Soomaaliya ay kaga gudbi karto marxaladan cakiran. Doorashadaas waxaan jeclahay inaan si guud idinka siino 10 tilmaamood. 1. Doorasho dadku si sahlan u fahmi karaan. 2. Doorasho la wada aamini karo, la wada arki karo, ayna adag tahay in la isku khaldo. 3. Doorasho waqtiga ay ku dhacayso uu kooban yahay. 4. Doorasho dadku u dhan yahay oo qof walba oo Soomaali ah oo doonaya inuu codeeyo uu u codeyn karo si xor ah. 5. Doorasho diiwaangelinta iyo codeyntu ay ka dhacayso hal goob isla hal maalin. 6. Doorasho qof walba uu u codeynayo xisbiga uu dooqiisu yahay. 7. Doorasho sida ay xisbiyadu u kala helaan codadka dadweynaha ee u kala badsan doonaan kuraasta baarlamaanka. 8. Doorasho maamulkeeda iyo amnigeedaba ay isla ogol yihiin kuna qanacsan yihiin mucaaradka iyo dowladdaba. 9. Doorasho isku haynaysa dadka iyo dalka Soomaaliyeed, ilaalinaysa xornimadooda iyo madax banaanidooda siyaasadeed. 10. Nabad iyo nolol waxay diyaar u tahay wax walba oo ay Soomaali heshiis ku tahay, danta dalka iyo dadkana aan waxba u dhimayn inay qaadato. waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan idinla wadaagno in doorashada aan tilmaamaheeda bixinay ay tahay doorashadii aan kala soo shaqeynay aniga iyo guddiga farsamada ahaa oo ka kala socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, guddiga xuduudaha iyo hay-adihii xafiisyada kala duwanaa ee dowladda federaalka waqtigii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan soo bandhignay 2018 noocaas doorasho oo aan tilmaanteeda bixinay. waxaan rabnaa inaan sheegno in doorashadaas aan waqtigaas diyaarinay oo aan kor ku soo sharaxay ay tahay isla doorashada ay maanta dowladda federaalku iyaduna doonayso.